Dardaaran hooyo waxay ku bilowday sidaan: wiilkaygii ama gabadheedii hooyo haddaan weynaado hadalkooy dhibo ii sabro ha i dhibsan, waayo aniguba adiguna hadli karin ayaan kuu samri jiray. haddaan cuntada cuni waayo ha igu qasbin, markaa u baahdo anaa cunaa ee amba kuguma qasbi jirine. haddaan su'aal kugu celcelsho si degan iiga jawaab oo ha i dhibsan, adiguba waxaad i weydiin jirtay su'aalo badan kumana dhibsan jirine, waana kuu samri jiray. haddii aan socon kari waayo ha i dhibsan oo ii tartiibi, amba sidaas ayaan kugu tartiibin jiray. haddii aan marada xiran kari waayo si tartiib oo naxariis ku jirto iigu xir, aniguba kuma dhibsan jirine, si tartiib ahna waan kugu xiri jiray. haddii suuladii aan awoodi waayo kaadida iyo saxaradana iska dhaqi waayo, si naxariisa iga dhaq ana i dhibsan, waayo aniguba kuma dhibsan jirin. haddii aan hadallada badan iyo su'aalaha soo noqnoqonaya kugu dhibo ha i dhibsan, waxaa laga yaabaa inay kheyr kuu tahay. haddii aan fool xumaado ilkuhu ay iga dhacaan, dhaguhu wax maqli waayaan, indhuhu daciifaan, luguhu socon waayaan, gacmuhu wax qabsan waayaan, carabku hadalku yareeyo, maskaxdu isku dardarsoonto, saxaradu iska daadato, kaadidana sidoo kale, sariirta mar walba aan wasaqeeyo hooyo ha i dhibsan, waayo sidaa ma ahaan jirin. xusuusnow inaan ku hayn jiray adigoon saxarada iyo kaadida iska tiri karin, lugo aad ku socotana lahayn, gacmo aad wax ku qabsatana lahayn, maskax aad wax ku fahantana lahayn. xasuusnow intaad maanta igu aragtay in ka sii badan inaan kugu soo samray, weliba farxad u arki jiray oo aanan maalin keliya ku dhibsan. hooyo ha noqon shaqi, yacni caasi waalideena ama midkoodba abaal lahayn, ee noqo abdi baari, yacni abaal badane. sidaas baad ku liibaanaysaa aakhiriyo adduunyaba. ilaahayo waalidiinteena u naxariiso sidai noogu soo naxariisan jireen anagoo yaryar. aamiin aamiin.